waxaan maanta ku suganahay xarunta dhexe xisbiga wadani ee gobolka Togdheer anigoo ah mas'uulkii ugu sarreeyay gobolka gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer magacayguna yahay Xuseen Kayn Xayd waxaan doonayaa arrimo dhowr ah inaan wax ka taabto oo ayaamahan oo weekend inagu soo noqonayay marka ugu horeysa mujtamaca ku nool gobolka Togdheer aad iyo aad ayaan u salaamayaa sida quruxda badan ee nabadgelyadooda u ilaashadaan danahooda iyadoo dawladina had iyo jeer wax la qabanayay si ay danahooda gaarkaana ay ugu tafaxaydan yihiin aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa uguna hambalyeynaya shacabka waxa ku dhacday abaar ayaa soo martay xoolo way ka baxeen tuulooyinka gobolka hareerihiisa hadii aad marto waxaad ku arkaysaa beelo ilaa 400 oo qoysa ilaa 500 oo qoysa oo isugu soo ururay xoolo ka dhamaadeen oo halkaas biyay baad u doonta aanay cid alla cid ka dul wareegtay aanay jirin waxaan leeyahay xukuumaddu way ku fashilantay arrimihii ay u ballan qaaday mujtamaca gobolka Togdheer ama gobolada Soomaaliland inay wixii loo ururiyay ama qarankii loo ururiyay ay wax kaga soo celiso qaarna xoolo ugu iibso qaarna ay waxay lafahooda maanta u cunaan u siiso salaano kala dan ka soo qaato degmada Waraabeeyo oo kale ah degmooyinka gobolka ugu dhow waxa jooga sidan war kaga soo qaaday ama aan ku soo maray ayaan dhaweyto dad ilaa 500 oo qoys gaaraya dadkaasi waxay waa dadkii gubada deganaa xoolo ka dhamaadeen xoolo markay ka dhamaadeen dawladna sidii halka dawladdiini iyo dadkiina haydin ku ogaado oo taga muddo 5 bilood ku dhow ayay joogaan imika biyo ay hay'ada u keenaan mooyaan wax laala wax soo gaaray ama loo keenay ma jiraan waxa jirta qaar waqooyigan iyaguna ku nool waxa jirta qaar magaalada barigeeda ku nool oo iyaguna noocaas oo kala waxaan leeyahay xukuumaddii waxaad maanta moodaa waqtigeedii oo si dhamaanaya markay aragtay inay ka argooso oo carariye cada ka reeb mooyaane inaanay wax kale ku jirin oo waxay ku fogan tahay sidii wax ay u iibin lahayd dhul ay ibiso hanti ay boobtay waxa mooyaan inay wax kale maanta dan kale aanay kala hayn mujtamacaasi waxaan leeyahay hay'adaha samafalka ee islaamiga dadka muxsiniinta dadka danyarta ku tabaalaysan gobolka Togdheer hareerihiisa inay wixii ay u karayaan la soo gaaraan dadweynaha gobolka Togdheer ku nool waxaan ku boorinayaa inay nabadgelyadooda ilaashadaan sidii ay wax isu tari jireen iyagu dhexdooda iska caawin jireen inay isaga caawiyaan oo ganacsatada gobolka ku nool iyo tijaarta weyn gobolka ku nool ay dadkaasi xoolo ka baxeen meelahaasi ku urursan magaalada hareeraheeda ama gobolka hareerihiisa ama degmooyinkiisa ay ilgaar ku eegay sidii awalba xilliga abaarta ay u qoodin jireen wax siin jireen halka taasan kaga baxaya waxaan kaloo halkan kaga hadlayaa qodob aad iyo aad u xasaasiya qodobkaas waxa weeye run ahaantii ayaamihii dhaweytay ama weeyigii dhaweytay waxa wadanka soo food saaray arrimo aad iyo aad u xasaasiya oo ka dhex taagnaa baarlamaanka ama aqalka golaha wakiilada oo laba u qaybsamay kadib markii ay xarqalada ka bilaabatay musharaxii helay doorashada Cabdiraxmaan Maxamed Talyaanle oo ku guuleystay 39 qodob cod in laga siiyay ama la yiri waxa helay Baasha Maxamed Farax run ahaantii arintaasi dawladdu way ku fashilantay golayaasheeduna way ku fashilmeen laakiin waxa si geesinimo leh oo aan la ilaawi karin taariikhduna ay qori doonto in badan ay nagu soo noqon doonta ku dhiiraday kana mid dhaliyay xisbiga wadani oo uu hormood ka yahay musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo hogaanka Xirsi Cali Xaaji Xasan gudoomiyaha ku meel gaarka xisbiga Cabdiqaadir Jirde iyo intii kale ee ku oog lahaydba waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan idinkaga mahadnaqaynaa waliba si gaar ah Cabdiraxmaan uga mahadnaqaynaa arintaasi guusha leh oo isagu aqalkiisa isagoon xafiisna tagin meel la tagin aqalkiisa labadii nin ee walaalaha isku golaha halka ku heshiisiyay arintiina ay ka aqbaleen nin walibana wixii uu doorka walaha qaatay iyagana waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaan Maxamed Talyaani oo tanaasul caqiibo leh ama wanaag la sameeyay iyo Baasha Maxamed Farax oo isaguna aqbalay kana qaatay waxaan leeyahay tanaasulkaasna waa kii Soomaaliland ay ku soo caanamaashay ee lagu yaqaanay ee aynu kaga duwanayn Soomaaliya iyo dawladaha agagaarkeena
run ahaantii waxaan leeyahay xisbiga wadani iyo taageerayaashiisa haddaan u soo noqdo waqti yar muddo yar ayaa inaga xigtay xilligii doorashada la gelayay markan taageerayaasha gobolka aan la hadlayo inay diyaar garoobaan oo qof waliba meesha joogo uga diyaar garoobo doorashadii sidii ay u geli lahaayeen runtii dhaqdhaqaaqyo fara badan ayaan wiigagan ka socday gobolka iyo nawaaxigiisa waxaan leenahay haddii ilaahay ka dhigo muddadaa yar inooga hadhay aynu guntiga dhiisha iskaga dhigno qolo waliba meesheeda ha isku abaabusho degmo waliba meesheeda ha isku abaabusho tuulo waliba meesheeda ha isku abaabusho barbarkay ka baxdaa waabakay la qaleen run ahaantii waxaan aad ugu mahadnaqaya iyadana warbaahinta madaxa bannaan ee had iyo jeeraale ka haqabtirta dadweynaha reer somalilan wararka ay u cilqabaan ama dhacdooyinka had iyo jeeraale ka dhaca daafaha gobollada somalilan oo ay mar walba har iyo habeenba u taagan yihiin inay soo gudbiyaan runtii waxaan leeyahay dadweynaha ku nool gobolka togdheer war nabadgelyadiina ilaashta arrimihiina gaarkaana cidiidino maqnaan u malaynayaa idinku isku tashada arrimihiina nabadgelyo nadaafad xumada jirta magaalada ka jirta ee had iyo jeeraale aad moodo inay dowladdii hoose aanay dheg u dhigaynin ee meeshii shilin ka soo baxayo un moodo inay had iyo jeeraale xoogga saaraan war waxaan leeyahay biiwaaye waqtigii idinka sii dhammaayey war walaalihiin oo ay nadaafad darro badan hayso iyo baahi badan ay magaalada ku hayso war bal iyagana hoos oodo haddii wax kale la tari kari weydeen nadaafadoodun ka shaqeeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu